wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil ayaa waxa uu bulshada ku dhaqan magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan inay muddadii diiwaangelintu ay ka xidhmaysay gobolka Awdal ay hadhay 2 cisho waxaana xusid mudan in wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil uu iska diiwaangeliyay xarunta hanuuninta Boorame isagoo markaasina shaqaalaha goobtaasi ku sugan ku bogaadiyay inay halkaasi ay bulshada hawsha u hayaan ay halkaasi ay ka sii wadaan. Xasan Daahir Dambiil wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waa arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayana waxa diladiisii ka mid ahaa waana maalmaha dadkii mashquulka ahaa ciddii safar ku maqlay ay tahay inay ka faa'iidaystaan fursadda waxaan aad ugu baaqayaa bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal inay tahay labadii maalmood ee gobolka Awdal guud ahaanba ugu dambeysay waxaan aad iyo aad ugu qorinayaa cid kastoo habsaantay cid kastoo islahay berri bay ku qabsoomay ama berri baa tegi ee guryaha ku habsaantay ama shaqo ku habsaantay ama safar ku maqlay inay ka gaarsiiyaan inay isdiiwaangeliyaan. Diiwaangelintu waa muhiim waa waxa kaliya dad codkaaga ku muujinayso cidda aad doonayso aad ku dooranayso waa waxa kaliya aad ku bedeli karto waa waxa kaliya aad ku muujin karto xorriyadaada shakhsiga aad leedahay marka qof una halmin xorriyadaada xaqa u leedahay codayso waxaan ku buurinayaa markaa in qof kasta ay ka qayb galo aanan runtii la dhayalsan ay tahay maalin muhiima maanta waa Arbaca 2 maalmood baa hadhay 2 maalmood waxaan ku codsanayaa in bulshada gaar ahaan inta ku dhaqan degmada Boorame oo ka gaari kartahay inay aad u diyaalaan inay ka qaadaan. Maxamed Xasan Ismaasheed Bare telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Boorame.